waxaan noo tahay maanta maalin weyn asbuucan aanu ka shaqayn doonaa xarumaha iyagaanu reyn doonaa waxaanu qayb ka noqon doonaa shaqooyinka socda iyo magaalooyin kala duwan ee laga shaqayn doono oo tiimamkaygu qayb ka noqon doonaan oo ka dhex muuqan doonaan insha Allah waxa weeye markan kaliya noqonaysa markasta oo deegaan la qurxinayo oo la cagaarinayo oo la dhiraynayo waxaan diyaar u nahay inaan qayb ka noqono halkan oo ah magaalada Garowe waxaa maanta laga daafuray toddobaadka dhiraynta Puntland waxaana ka soo qayb galay shirkadaha ka howlgala deegaanada Puntland waxay la taagan Maxamed Cabdiraxmaan oo ah maamulaha ganacsiga shirkadda Somtel ee deegaanada Puntland Maxamed oo soo dhaweynaya ka Somtel ahaan maxay idin ka dhigan tahay daafurka maanta inaad ka qayb gashaan toddobaadka dhiraynta Puntland bismillaahir rahmaanir rahiim TV-ga raad waa u mahadcelinayaa waa warbaahin aanu saaxiib dhownahay wada shaqayn fiican naga dhaxayso maanta saashabtii waxaan joognaa daafurka asbuuca dhiraynta Puntland oo ay Somtel ka mid tahay maalgeliyaasha barnaamijkaas runtii anaga maalin weyn bay noo tahay saa u jeedaa cimilo kulul baynu ku jirnaa maanta in cimiladu ay qowbnaato oo laga shaqeeyo in dhirayn iyo cagaarin lagu sameeyo deegaanada Puntland anaga waxay noo tahay wax weyn inaan dhiirigelinaa wax weyn bay noo tahay runtii markaan barnaamijkan aragnay anaga ku dhiirinay inaan qayb ka noqono barnaamijkan maadaama aanu rabno environment iyo deegaan cagaaran qurux badan inaanu ku shaqeysano aanu helno macmiil haysta deegaan ku qanacsan yahay markaas anaguna waxaan dareensanahay heli karno in adeegayagu uu maaragtay meel fog gaari karo aan heli karno macmiil degan oo haysta deegaan cagaaran oo qabow oo rooban oo maaragtay ku haboon in lagu noolaado saas awgeed baan anagu qayb uga noqonay barnaamijkan oo u dhiirigelinay waxaan noo tahay maanta maalin weyn asbuucan aanu ka shaqayn doonaa xarumaha iyagaanu reyn doonaa waxaanu qayb ka noqon doonaa shaqooyinka socda iyo magaalooyin kala duwan ee laga shaqayn doono oo tiimamkaygu qayb ka noqon doonaan oo ka dhex muuqan doonaan insha Allah waxa weeye markan kaliya noqonaysa markasta oo deegaan la qurxinayo oo la cagaarinayo oo la dhiraynayo waxaan diyaar u nahay inaan qayb ka noqono insha Allah Somtel waa dookhayga waana dookha dadweynaha